بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo maalin isniin ah oo ay tahay bisha afraad lixdeedii waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland halka ugu soo jeedin doonaa fariin aan rajaynayno inay joogto noqoto bil walba maalinta isniinta u horeysa bishaas runtii barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo barnaamij joogto ah oo ku soo kordha geedi socodka dawlad dhiska Puntland oo aan rajaynayno in ay maalinta ka sii dambayso isu soo dhawaadaan maamulka dawladda iyo shacabka mas'uulka uu dawladdu u tahay si ay ula wadaagaan fariimaha ku aadan isbedelada dhacaya iyo waxqabadka ama dhaliilaha markaa jira si ay uga helaan war sugan oo xaqiiqo ku salaysan oo ka soo baxay madaxda dawladda iyo madaxtooyada sidaan ognahay isbedel weyn ayaa wuxuu ku jiraa guud ahaan bulshada adduunka oo dhinaca horumarka warbaahinta iyo sida ay qof walba uu gaar u rabo in uu macluumaadka isaga uu si toos u helo oo laga guurayo hababkii hore ee bulshooyinka u noolaan jireen iyadoo taa laga ambaqaadayo dawladda Puntland waxay astaysay bil walba maalinta isniinta ugu horeysa in ay dadweynaha la hadasho si ay ugu soo bandhigto aaraada iyo afkaarta markaas dawladda ay u baahan tahay inay dadka u gudbiso iyo macluumaadka saxda ah ay rabto bulshadeeda inay la wadaagto iyada oo ay ula gol leedahay dhismaha dawladnimo iyo geedi socodka dhismaha bulsho oo aan rabno inay ku saleysnaadaan xaqiiqo dhab ah oo u adeegaysa horumarka mustaqbalka dadkan ay tiigsanayaan intaan u gudagelin fariinta hadalkayga waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa halka uga tacsiyeeyo geeridii ku timid Allah u naxariistay ambassador Maxamed Cumar Jaamac Dhigic oo runtii ahaa nin muddo dheer u soo shaqeeyay dalka Soomaaliya xilal badan ka soo qabtay wasiir ahaa muddo dheer danjiraha Soomaaliya u fadhiya Brussels ahaan jiray wasaaradda kala duwan ka soo shaqeeyay sidoo kale tana burburkii kadib aasaaskii bulshada reer Puntland qayb weyn ku lahaa oo ahaa madaxdii iyo aqoon-yahankii yimid gobolada Puntland oo dhismaheeda qayb weyn ka qaatay maxamed jaamac ilaahay ha u naxariisto maxamed cumar jaamac ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii muddada dheer taqaanay sidoo kale inkastoon horey ugu tacsiyeynay waxaan fursaddan maanta iyadan uga faa'iidaysanaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Nurcadde ee weli tacsiyadiisa taallo waxaan isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryanaa inuu qabriga u waasiciyo dambi dhaafna ilaahay uu siiyo iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muddadii u dambeysay geeriyooday oo uu ka mid yahay gudoomiyihii gobolka Nugaal oo runtii gacan ka xaq daran oo argagixiso ah ay ku dishay magaalada Garowe iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee dhammaan magaaladan dambe khaasatan Yurub iyo Mareykanka ugu dhimaaya xanuunkan caabuqa ah ee ku soo siyaaday adduunka oo runtii dhibaato weyn ku haya caalamka oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waxaan runtii aad u bogaadinayaa hawsha dib u heshiisiineed ee ka socota Galmudug waa runtii hawl lagu farxo in madaxweynihii hore Galmudug xaaf oo maanta caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb u tagay uu cadeeyay in uu diyaar u yahay inuu dhismaha Galmudug uu qayb ka ahaado waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne Qoorqoor sabirka iyo dadaalka iyo wanaaga uu u sameeyay sidoo dib heshiisiin u abuur lahaa waxaana muuqata markii Galmudug ay isku kaliyeysatay dadkeedu oo runtii dawladda dhexe ay waqti siisay inay arrimahooda xalisteen waana arrin lagu farxo oo aan ku baraarujinayno kuna bogaadin doono deegaan walba dadkiisu inay arrimahooda ay xalistaan oo wixii madmadow oo dhexdooda ku jira ay ka wada fariistaan oo wanaag ay uga gudbaan waxaan sidoo kale halka bogaadinayaa dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada Nairobi ee u dhaxeeya madaxweyne Axmed Madoobe Xidig Seeraar iyo Sheekh Daahir oo runtii iyagana khilaaf ka abuurmay xilligii doorashooyinka ee Jubbaland ay ka dhacaysay sabab ka dhalatay ay khilaafkaas u soo jiitamay waxaan uga mahad celinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan
arrimo hoos oo ay xaliyaan waxaana runtii ka warqabaa in goor dhow uu gabagaba yahay xal waaran ay ka gaari doonaan isbedeladaas ku socda Soomaaliya oo ka dhex socda maamulada oo dadka Soomaaliyeed ay garteen inay wada hadlaan waa fure iyo rajo cusub oo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas waxaan hore u sheegnay inaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto maamuladaas caasimadaha u aan booqan doono arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyay inaan diyaar u ahay waqtiga aan diyaar inaan ahay dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo la mida inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinaca iyagu diyaar weeye waana u sheegnay waqtiga aan diyaar ka nahay welina sidii baan diyaar u nahay dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay marka waxaan u caddaynaynaa inay Puntland waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha farsamo ee suuragalka ana ay xal looga helo dabcan shirarka arrimaha federaalka ku saabsan waxba hadda ka hor dhici mayno wuxuu ku xirnaan doonaa kulamada ay yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah oo aan rajaynayo inay dhacdo xilli ku habboon oo haddii ay suuragal noqoto annagoo tixgelinayna duruufaha iyo xaaladaha dalka maraya guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan colaadaha soo ifbaxay la yareeyo kuwa ka dhacaya aagga mudug saaxay agaarkeeda waxaan ugu baaqaynaa in colaada la joojiyo dhex maraysa dadka walaalaha ah waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa colaadaha ka dhacaya magaalada Kismaayo agaarkeeda oo dad walaalaha iyagana ay ku dagaalamayaan in colaada joojiyaan dhulka Soomaaliya lama kala leh dadka Soomaaliyeed waa dad qura waa dad wada degan dhul la kala riixdo dhulkaan ma jiraan waxaan rajaynayaa wanaagga in laga shaqeeyo nabadda laga shaqeeyo loo wada jeesto cadowga dhabka ah al-shabaab si loogu hortagi lahaa